Champions League-ha guud ahaanba waxaa la bedelay qaabkii loo ciyaari jiray sanadihii aan soo dhaafnay oo ahayd xeerka guruubyada iyadoo group walba la gelin jiray 4 kooxood group walbana laga rabay inay ka soo baxaan 2 kooxood oo kaliya. Sanadkan waa uu ka xiisay oo xamaasad badan yahay marka loo fiiriyo sanadihii hore ee Champions League-ha. Qaabka loo ciyaarayo waa qaab kala sarreyn ama dhibic kooxa waxa ay ku tartami doonaan top 8 siday ku gali lahaayeen. Kooxii top 8 soo gala toos ay wareegga 16 u aadi doonaan halka kooxaha kaalinta 9 ilaa 24 gala ay isku dhici doonaan play-off. Kadib 8 soo baxda ayaa wareegga 16 u soo gudbi doonta oo la ciyaari doonta 8 kooxood ee top 8 ku dhameystay. Kadib sida caadiga ahayd ayaa loo ciyaarayaa 16 ilaa 8 dhamaadka semifinalka iyo finalka. Kooxaha kaalinta 25 ilaa 36 ku dhameystay waa ay iskaga hari doonaan guud ahaanba tartanka. Ugu koox walba 8 kulan home iyo 4 kulan oo away ay ciyaari doontaa. Daawade adiga maxay kula tahay isbedelka lagu sameeyay Champions League-ha?